kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ku soonahay maanta dhismaha guriga Qibla South Tower oo ay shirkadda dhismaha guryaha ee Qibla Homes ay ka dhisayso xaafadda Southie ee magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya saa ujeedaan waxa bilaabatay shaqadii oo guriga waxa lagu bilaabay shaqada waxaana agtida taagan maamulaha sare ee shirkadda dhismaha guryaha ee Qibla Homes Sheikh Liban Ali in Sheikh Liban sida wax u socdaan faahfaahin naga sii ما شاء الله سأوجد ما أنت وحن ودنا ololihii maalmahan baa wadna duminta gurigi mar hadii dumin bilaawateen waxa ku xigo waa dhismihii soo marka hadda waa dumintii wadna gurigi soo taawa Qibla soo taawa Southie waxaan ku xigno waa qoditaankii iyo dhismihii gurigan wuxuu ku yaalaa meel istiraatiiji ah marka xaafadda Southie guryaheeda wuxuu ku duwan yahay guryaha kale ee laga dhisay xaafadan bal hadda noo sharaxdo adeegyadiisa muhiimka iyo meeshu ku yaalo oo anagu xataa ku aragno inay tahay goob muhiim horta gurigan wuxuu ku yaal meel center ah oo aad u qurux badan oo meelii ugu fiicnaa oo Southie oo lagu dooro lahay shopping center ka inta naga inta isbitaalka naga Nairobi South Hospital inta masaajidka naga isbitaaladii wixii dhan way ku yaalaan waxay ku tusaysaa meeshaan ka doorno guriga inuu yahay meel center kaasoo ugu talagalnay in dadka macaamiisha ay ka faa'iideystaan ee u noqoto guri oo doorasho iyo lagu keenay iyo qaaban casri ah mashaariic fara badan ayaa wadan oo gurigan oo qayb ka yahay dad fara badan oo Soomaaliyeed iyo dad kale ayaa doonaya mashaariicdaas inay ka faa'iideystaan waa maxay fursadaha ay ka heli karaan gurigan ama aad ugu baaqi kartaa inay ka faa'iideystaan maadaama dhismaha gurigan uu bilowday waqti yarna uu soo gabagaboobay horta mashaariic badan wadnaa oo Nairobi Mombasa waan ka wadnaa shirkadda Qibla Homes ka wadaa mashruucan hadda waxaan tusaynaa walaalaha shaqada inay bilaabatay oo dumistii aan bilawnay dumistii aan dhameynay inaan bilaawi doono qoditaankii iyo maaragtay iyo dhismihiiba soo mashaariicdan hadda gurigan Southie kale waa guri hadda offer ku jiro aan ugu talagalay dadka walaalaha inay ka faa'iideystaan iyo mashaariicda Mombasa ka socotaba bal adeegyada ugu talagasheen gurigan markii uu ku dhameystiro oo yeelanayo haddaad la wadaagto macaamiisha shirkadda iyo gudaha ummadda Soomaaliyeed horta gurigan wuxuu yeelan doonaa waa guri 15 dabaq ah oo ka kooban duplex iyo guryo caadi ah saasoo kale haddana wuxuu leeyahay agabkii iyo facility-ga oo guryaha lagu doorto sida gymkii iyo playgroundkii sitting area-dii iyo basement-kii iyo madrasadaba inta uu leeyahay soo waa guri loogu talagalay dadka qurba joogta iyo dadka localkaba intaba inay ka faa'iideystaan guryaha noocan oo kale ma jirtaa marka discount aad ugu talagashay ama qiimo dhimis macaamiisha ها ويجتا طبعا هورنا u wadnay dadka walaalaha u sheegay intaan shaqada bilaabin inuu discount uu soconayo shaqadana hadda way bilaabatay dumistii noo bilaabatay waxa ku xiga waa shaqadii kale ee qoditaanka iyo dhismihii soo weli overkii uu jira laakiin waa wax iska kooban anytime ayuu dhamaan karaa qofkii marka Ilaahay nasiib waafajiyo baa ka faa'iideysan kara ma sha Allah dumintii ayaa hadda socota shaqadina way bilaabatay imisa ayuu qaadanaya dhismaha guriga saasileeda shirkadda dhismaha guriga ma fogo wuxuu qaadan karaa inta badan anaga waxaan ku qiyaasnay 2 sano laakiin guriga markii la dhisay in la dadajiyo ma fiicno waxa fiican guriga si fiican dadkii ka shaqeynaya injineerada waqti la siiyo si guriga uu noqdo guri adag oo mustaqbal leh shirkaddu waa shirkadda Qibla Homes guryaha ay ku caanbaxday casriga inay dhisto oo qayb badan oo kii hadda mashaariic ay ka wadaan hadda mashaariicdeeda noo soo koobto ay meelaha ka wado gudahankeeda hadda shirkadda Qibla Homes mashaariicdeeda wado bilaabayso waa Nairobi Mombasa xaafadda Nairobi oo Southie oo guriga la dhahayo Qibla South Tower iyo xaafadda Mombasa oo Nyali oo gurigaas la dhaho Qibla Ocean View labaas mashaariic hadda noogu xoog badan mashaariicdan wadna hadda اسمي وارجنا وجوجنا مانتي شقدي واسعتها وهي بقى قدام معاميش أو دريس شكده بقى عن أدري معاميش ومحي وفرصتي عن أشجني وبعد مستعد وصعون يصير أورك بلاد إني كفاية يستعن ده كأنت بدنا نحسوها أبديت شغال سوى صعته هذا وحاولت لقلنا أبديت كوسيني إني أركان إن وبلاودي دمستي haddana socoto maaragtay dumistar haddii dhammaato oo qodista haddii dhammaato dhismo tahay dhismahaasna uu noqon doono mid uu guriga ku dhammaanayo soo darteed marka waxaan dhihi lahaa walaalaha inta badanba fursadda way socotaa
baadhimistan way socotaa laakiin wax forever ma waa wax xadidan anytime dhammaan karaan soo marka waxaa leeyahay marba haddaa aragtaa muuqaalka sida ugu dhaqsiyaaba nala soo xiriir kana faa'iidaysta aad iyo aad baa u mahadsan tahay sheekh liibaan dabcan xogtada ku saabsan dhismaha gurigan waana kaga mahadsan sidoo kale aad u mahadsantiin university-ga niga mahadcelinaya booqashada iyo maadseedka aad timaadeen aad iyo aad u mahadsantahay ninkaba shirkadda dhismaha guryaha ee qibla homes guryahan qurxoon oo indhuhu qaabilayaan oo qalbiguna ku doogsaday waa qasriyadii qibla homes haddii aad qacdii hore ashqaraar la qabac tiri waxba yaanu ku qaadin qalbi daraandarkuye kaalay qibla homes way ku qaabilaysaa shirkadda qibla homes waxay mashaariic ka wadaa nairobi south sea iyo mombasa niyali shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxayna ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex 4 bedrooms duplex 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom 3 bedroom 2 bedroom iyo 1 bedroom caadi ah guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha qaabka shirkaddu wax u dhisayso waa qaab heer sare ah oo turkish style ah guri kastana waxa uu leeyahay masaajid madaraso swimming pool iyo gym playground meelaha lagu caweeyo ama sitting area wiishashkii motor automatic ah ceelbiyood internet barkin supermarket pharmacy cafeteria security guard iyo CCTV camera iyo facilities kale oo dhammaystiran shirkaddu waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in beec dhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 bari iyo fursad kale oo qaali ah loo sameeyay wixii faahfaahin inta dheer la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheekh Liibaan Cali adigoo kala xiriiraya telefoonada iyo emailka shashada kaaga muuqda